Waxaan wanaagsan jeclayaal ku soo dhawaada muuqaal ka duwan muuqaalada iga barateen oo muxuu uga duwan yahay dabcan wuxuu uga duwan yahay waa markii koobaad oo aan kula wadaagayo hab ka mid ah hababka internetka looga shaqaysto ama online-ka lacag looga sameeyo marka haddii aad tahay qof khibrad u leh internetka ka shaqaysan jiray oo lacag ka sameyn jiray waxaa laga yaabaa fursad aadan horey u ogeyn inaad ka dhex aragto muuqaalka ila daawo oo ila dhamayso haddii aad tahay qof cusub oo doonaya hadda inuu ku soo biiro dadka aadka u faraha badan ee maalin walba internetka ka shaqaysta lacagaha ka sameeyana adigana fursad ka sii qaalisantay ayaa kugu jirtay ila joog labada qof midna haddii aadan ahayn waqtigaagu waa qaali yuusan muuqaalkani waqti kaa lumin waad isdhaafin kartaa aan u soo noqdo muuqaalka sharaxaadiisa shabakadan magaceeda waxaa la yiraahdaa triabo.se website-kana waa website caalami ah .se ama .se markaan ku darayo Sweden baan joogaa waqti xaadirkan aan kula hadlayo muuqaalka duubayo marka automatic ayuu browserku ugu daray SE-da anaa dib kaaga sharxi doono wadamadu ka shaqeeye marka hore balaan account-kayga galo oo i tuso taabsiisha macallin ee lacagta aan ka sameeyay aan ku tuso adiguna waad ka samayn kartaa dabcan haddaan aniga ka sameeyay muuqaalka dhankan midig lacagaha kaaga muuqda waa Swedish kron waana abaalmarintii lacageed aan ku helay daqiiqadihii u dambeeyay shaqadii aan qabtay wadamka aad joogto nasiibkaaga ma garan karo 85 wadan bay shabakadani ka shaqaysaa waa shabakad caalami ah sidaan horey kuugu sheegay bilowgii muuqaalka shabakada .se ayaa si automatic ugu daray browserku marka adiga waxaa booqanaysaa triaba.com caalami ahaan weeye wadanka aad joogto haddayba ka shaqayso marka ayaa macluumaadku kuu soo baxaya waxa laga rabo shaqada qabanayso noocay tahay isdiiwaangelintu aad ayay u fududahay sida aad lacagtaada loo bixi kartana aad ayay u fududahay wixii su'aalaad qabtaan fadlan qaybta commentiga haddaa hore u jitaabiso aad ku jirtay waad noogu reebi kartaa qaybta commentiga wixii talo iyo tusaale ah muuqaalka daawashadiisana aad baad ugu mahadsantihiin